hay-adda Udgoon Foundation oo kaashanaysa bulshada ku dhaqan magaalada Garissa ayaa dhiig bixin ka samaysay magaalada taasi oo 6 bilood ay mar samayso Udgoon Foundation. Dhiigan ayaa lagu deeqayaa isbitaalka weyn ee magaalada Garissa ee Garissa General Hospital sida ay nooga warbixisay wakiilka haweenka ismaamulka Garissa Udgoon Siyaad Kuno oo ah madaxa Udgoon Foundation. السلام عليكم ما أنت بحنكو كلنا جالسة بريمري أنا جو لهدت كينا وصباحة أو ديجينا وشوفا ما موين بدن أو استبالة جوجو أو أمولي أو بهنديجا استبال كبعض شدود درسدان إنه ديج وجرين بنكسكا سيد عدد النوع هاد يدت كرجارس أو إسجعلاين ما أنت نادنا وصباحنا إن ديجينا وصدقيسنا وما موين كاس وجرجارنا يدت كحنونسن ما موين كبس ما ديجا مثل فيديو وعاونا يا دتك أو ماشى لكانه أو ديك دقدقة وباهن أو نلاش هذا اللي جو ببادنا وآيات قرآن سورة المائدة إلهي سبحانه وتعالى وحول هاي حلقة فدا بتبادسد وهذا دتك قرن خلقه بتبادسه مركا عنك ودريجة صدقي سنة هنا. Udgoon Siyaad wakiilka haweenka ee dawlad goboleedka Garissa ayaa u mahadcelisay dadka xilli walbo dhiiga bixiya ee ku garab istaaga arrintan dhaqaatiirta Garissa iyo dawlad goboleedka ismaamulka Garissa. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka ila taagnaa weligood badhiigana la bixin jiray waxaan rabaa inaan u mahadcelino dhaqaatiirta istaalka weyn oo Garissa waxaan rabaa inaan u mahadcelino governaha iyo teamkiisa iyo county governmentka oo iyagana na garab istaagaan mar walba waxaan rabnaa inaan u mahadcelino youthka uu weyn yahay Cabdinaasir 77 oo weligiisba dhiigiisa dadka u deeqi jiray waxaan rabnaa inaan u mahadcelino St John's ambulance oo iyagana mar walba dhiigana la bixiyo iyo qof walba oo soo bixiyo ismuujiyo oo leeyahay dadkan caawinayna aad iyo aad baa u mahadsantihiin Garissa reer Garissa baale Garissana waa inay u istaagtaa reer Garissa walaalahood waxaan garabkan u joognaa oo dhiigeena mar walba u shubnaa inaan walaalahana garab istaagno marka dad isjecel oo isku duubanaan noqono walaalayaal soo baxa wax dhiigaaga caafimaadina ka qaadamo ogiye ma suuxaysid dhiigana lagama miirano maxaa waay dad muslim ku sadaqaysanaysa dhalinyarada waxaan ku goobaadinaynaa inay mar walba kii bixin karin iyo kii bixinayo inuu iskeeno kii bixin karin inuu nala taagnaado oo uu arko inaan dhiig bixinayna kan bixin karana inuu dhiigiisa sadaqaysto shukran dhanka kale xildhibaanka Garissa Township Majadeqo oo kamid ah dadkii bixiyay dhiigiisa ayaa bulshada ugu baaqay inay dhiiga la bixiyo si loogu caawiyo kuwa u baahan. Udgoonna waan ku mahadcelinaynaa waan u mahadcelinaynaa maartay maadaama ay programkan ay sanad walba last 4 years waxaan ka codsanaynaa inay wado reer Garissa uu dhaqan u ahaado inuu dhiig bixiyo ma aha dhiig hadaa bixiso inuu wax ka nusqaami kulli waxaan filaynaa siday taqtariinta leeyihiin in wax ku sii ziyaadi marka waxaan leenahay reer Garissa magaaladan waa joogtiin hospitaalkeeni dadka dhiig u baahan waa dadkeeni inaan mar walba inaan inta iska imaato adoo kala socoto adoo ruux saaxiibka la socoto dhiiga aad bixisaan bishii soo socoto waxaa jira taariikh 14 International Blood Donation Day ayadana waxaan niga codsani bil ka bacd hadda inaad imaataan qaasatan madaxda wadanka laga soo doortay iyo kuwa madaxda appointed ka ah inay inta imaadaan ayagana maalintaas ay ka soo qayb galaan si ay tusaale ugu ahaato ummadda iyo bulshada magaalada degan marka intaas hadal ku soo koobi Shaar Ahmed Daqane warbaahinta Garissa.